magaalo xeebeedka Somaliland ee Berbera waxa ka socda diyaar garow loogu jiro in bisha February ee soo socota uu ka bilaamayo dawlad military oo aan noociisa hore lagu arag Geeska Afrika kaasoo ay si wada jir u qabanayaan wadamada Somaliland iyo Mareykanku. Somaliland oo markii ugu horeysay marti gelinaysa dawladuskan military oo heer caalami ah kaasoo ay ka qayb gali doonaan in ka badan 20 wadan oo adduunka ah kuwaasoo ka kala socda qaaradaha Amerika, Afrika, Aasiya iyo qaaradda Yurub. ujeedada laga leeyahay dawladuskan military ayaa ah sidii kor loogu qaadi lahaa iskaashiga amniga ee ka dhaxeeya Somaliland iyo Mareykanka iyo sidii dhinac looga soo wada jeesan lahaa la dagaalanka argagixisada ee Geeska Afrika. guusha taariikhiga ee Somaliland ka gaadhay siyaasadda arrimaha dibadda ayaa timid kadib markii madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi uu safar ku tagay dalka Mareykanka kaasoo kulamo kula qaatay saraakiisha ugu sareysa dalkaasi ka arrimisa. kadib madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa qalinka waxa uu ku duugay xeerka amniga qaranka kaasoo hore u soo ansixiyeen labada aqal ee Koongareeska iyo Senatku kaasoo ay Somaliland qayb ka tahay miisaaniyadiisuna ay dhan tahay 816 bilyan oo dollarka Mareykanka. iskaashiga militariga ayaa Somaliland siinaya fursad ay kula shiraakowdo wadamada caalamka ugu awoodda badan iyo inay ka faa'iideysato khibrad iyo tababarada wadamada horumaray ee uu Mareykanku ugu horeeyo. dhinaca kale ciidamada militariga Jamhuuriyadda Somaliland ayaa waxay ku guda jiraan diyaargarowgii ugu dambeeyay ee ay ka qayb qaadan lahaayeen dawladuskan military ee caalamiga ah.